منيرة التركي كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن منيرة التركي كتبت قصيدتي فرحا أبارك والحبور علاني زفت بشارة أنك في همة بالأمس فزت بختمة القرآن كنت الصغيرة ليس توريك الدمى كلا ولا لعب مع الأقران ولئن شدوت كان شهدوك آية رتلتها من محكم القرآن ومناسبة ذو قيمة بدن وأيكو قلن جبينيان دفعدي كوباد حفتقا قرآن كريم كردما يستام كوبية تبن مدرسة هوسي مادا جمعية دارما سمفلك يسكاشيغا دارو البري فردقوسيا مقالة دارقيسا جمعية دايا سوق وانقابسة مناسبة أيكو ماموسيسو ardaydii soo dhamaystay xifdiga quraanka kariimka iyo ardaydii kaalmaha hore ka soo galay imtixaanaadkii laga soo qaaday sanad dugsiyeedkii dhammaaday waxaa sidoo kale munaasabadani ay tahay furitaanka sanad dugsiyeedka cusub ee madaarista kala duwan ee lagu talagalay dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Hargeysa munaasabadan oo ka qabsoontay hoolka mulkhayraad ee magaalada Hargeysa ayaa lagu soo casuumay mas'uuliyiinta ugu sareeya ururka samafalka Albirri waxgarad aqoonyaano waalidiin iyo ardayda qiimaha badan ee 12 madrasadood ka barta xifdiga quraanka kariimka madashan oo si degan ku bilaamatay waxa lagu furfuray dhageysiga aayadka quraanka kariimka kaas oo ugu raaxayay dhagaha ka soo qayb galayaasha mid ka mid ah ardayda xufaadda ay ka barata madaaristani quraanka kariimka innal ladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaa'ikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين markii laga soo laabtay dhageysiga aayadka quraanka kariimka waxaa madasha furtay isla markaana faahfaahin dheeraad ah ka bixisay gudoomiyaha guud ee jamciyadda Albirri Samsam Muuse Sheekh Maxamed waxaana dardaaran u soo jeedisay ardayda kala duwan ee madaaristani ka bartay quraanka kariimka iyadoo ka warbixisay ahdaafta iyo dadaalka joogtada ah ee jamciyaddu ay kula jirto sidii ubadka lagu barbaarin lahaa diinta islaamka iyo waliba xifdiga quraanka kariimka waxay dardaaran iyo duco u soo jeedisay waalidiinta qiimaha badan ee ubadkoodu ay ka faa'iideystaan madrasadani waxaana gudoomiyaha hadaladiisii ka mid ahaa waxaan jiray jamciyaddu dad waaweyn wax bartaa laakiin in da'yarna wax la baro in da'yartu maanta ku badan yihiin oo dhalinyarada ku badan tahay oo kuwa soo koraya ay ku badan yihiin baan maanta ogaaday laakiin awal waxa oran jiray waxaan ku bilownay dad waaweyn dadkii waaweynaa malaa dhalinyaro badan kuma beerin alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa soo ubaxa oo inoo soo kacaya waayeelka oo moodo maanta xataa inay wada da'yaraade waxa dhanaayay dadkii waaweynaa madrasada ugu tagi jirteen maanta de markay soo labisteen direesna soo xidheen hablo wada yaryar u bay noqdeen kama muuqdaan ba meesha marka ما شاء الله تبارك الله
waxaynu halkaa ka sugaynaa horta markii hore jamciyadu dad waaweyn baa lagu bilaabay dadkii imika way 9 sano ayaa ka soo wareegay 9 sano dumarka qaar fadhiyay maanta way nala joogaan waxaan filayaa kuwaasi quraankii ama yarba uga hadhay markaynu intii waayeelnimo iyo guryihii iyo markaynu ku darnay iyo mas'uuliyaadkii ay hayeen markaynu ku daba darno كل قرآن كوين دنويين قاركودنا وحفاظه 20 جزء أما 8 جزء أي حفتي سيه أنت أنا حديث يا آيات أي كدول سعودي ما أنت إنك تذكر الله بلا أي دعاء نقدا أو معلمين تنسيان أو لقى أركو أيام ما أنت لدونية وحن شيدين دونا مركز بيكو آمنا أوضمية لكن هرت ما أنت فرحت بابا هذا كرلا هول كنوي نقادي واي مرها مدكر دو نقادي لكن ما كاين ما قادي حفلته كل حكتا سند والبا وين سميسان دونا markay xurayna waynu soo dhaadhici halkaleenu isugu iman doona laakiin waxaynu hadda kadib u guuri doona meel ka waaweyn oo ka balaaran oo maanta matalan madaarista waaye meel ay fadhiistaan ay helaan maanta hadaan moodayno inaanay qaadaynin waa la heli lahaa hoolal ka waaweyn oo maanta aynu fadhiisan waynu heli lahayn laakiin waxaan islahayn malaha dawaynu qaadi doona hoolkan umul khayraadku ويدو قادي دونا آدي آد بانو فرحسن برنامجك يا هول وذندا أنك سيحن أنت برنامجك وذي أنت قرحني الحمد لله رب العالمين وحينا صوص على وسارة دين تأيي أوقافتا آد نوين وسود وين دونا وحينو توصي دونا جمعية بري كل تيسا قال جنستي دي وحينو هينا بين توصينا سماها waxaa la doonayaa qolada barnaamijka soo daynaysa inay si wanaagsan u akhriyaan oo cod karnimo leh oo dadkuna si fiican u dhageysto hadafka iyo ujeedada midhaha uu leeyahay la fahmo sida inanta imaka gabaygeeno akhriyeysay ee reer Sheekh Umar waa in la fahmaa qofka waxa uu leeyahay hadalkiisu hadal kala soocan oo la fahmayo waa inuu noqdaa laakiin waa inaanu noqon nacam kalmad intuu dudubiyo waliba dhalinyaradu ay dudubiyaan markaaba ay ka baxaan hadal kale hufan oo la fahmayo sidii inantaas ay u akhrido oo kale ilaahay waxaynu ka baryaynaa in yadana ilaahay darajeeyo qaar ka mid ah ardaydii qiimaha badnaa ee ka socday 11 madarasadood ee hoos yimaada jamciyadda Albirri ayaa iyaguna intii munaasabadu socotay waxay ku soo bandhigeen bandhiga aqooneed aad u qiimo badan iyo culumtii kala duwan ay ku soo barteen madaaristoodani waxaana ardaydani bandhiga aqooneedkoodii ka mid ahaa العلم النور يقذفه الله من يحبه مبتسم لا تحصل إلا بدلبه لذلك يحث الإسلام على طلب العلم فأول آية نزلت من قرآن كانت تأمر بقراءة قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسير مكة في قسوة البدر أن يعلم العشرة من المسلمين قراءة والكتابة ورفع الإسلام من شأن العلم والعلماء قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ويقول تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وجعل الإسلام علم نوعان من جهاد فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع والعلم نوعان نوع الأولى علوم الدين والشرعية وهي علوم بأمور المقاييد والعبادات والمعاملات والأخلاق وغيرها من أمور التي لا يصح الدين المسلم إلا بها وهو فرض على كل مسلم ومسلمة والنوع الثاني وهو علوم مدنية مثل الطب والمهندسة واللغات وكل علم يحتاج إليه مجتمع إسلامي وهو فرض على المسلمين وعلى متعلم أن يتصف بآداب التالية الإخلاص بأن يبتغي رضوان الله بهذا العلم وليبتغي بمكابرة والمراء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم التواضع مع معلم ومعرفة قدره والاتقداء به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه تنظيم الوقت تظهر محافظة على أدوات التعليمية إقبال على معلم الحسن الاستماع إليه وخفض الصوت معه
yeysan ku gelin kalsooni saayida miyeysan dadiilo kuu noqon goortii qofku dhaahdo waan ku jeclahay su'aasha saxda ah waa loo gormaa sababtoo ah sida xiliyada sanadu isku bedelaan ayay dadkuna isku bedelaan ogow goortii xilligii xumaan loo geysto dadka caqliga badan way hilmaamaan dadka daciifka ah way aargoostaan sidoo kalena dadka xoogan way cafiyaan aargoosiga ugu wanaagsan waa inaad hore u socoto cafiso oo isku ilowdo kuna dadaasho inaad guulaysato biyuhu waa waxa ugu jilicdasan haddana waxay awoodaan inay dumiyaan dhismooyinta dhagaxaanta iyo sidoo kale guryaha taasi waxayna tusisaa in mabaadiic dabacsanaan iyo degnaan aad kaga guulaysan karto waxyaabaha aad u adag had oo kii abwaan Soomaaliyeed lahaa duugtayda geel dalay ninka keeni doono haday damqasho ka tahay maanta diirnaxiisi markaan duruuftiyo diifta dhaafana ninka tumi durbaanko haday daacad ka tahay hada darajo iyeel ninka quruxda duudka dooqiisu ka eeyo dabar iga dhigaya maal markaan soo dabcana laag dibadda igu dhigayo aan digtooni yeeshe hada muuji digashada anta kadiriyo samaha lagu diriyo anshaha dhawraynu nahay anshaha dhawraynu nahay waxaan dhiganaa qur'aan xalal bandeesanaa sunnah nabigaan dhanna waxaan jecelahay dhambaal qalbiga noo sii dhiso dhawaaqaan mahadina waxaan jecelahay dhaqsaba inaan dhilaha bannaan cilmiga kaga dhaansanaa waxaan jecelahay dhawaan inaan naqnaa dhaliil dhulkiyo diintaba anfaca waayana qoyskiina dhalay inay noo dhididayaan annaga dheefna la rabaan annaba wandaansane allow dhinacoodahay وإنما أنت المال لكل امرئ ما نوى فاقتصدي سجن يودوي فمن كان كاتب تدريس إلى الله إلى أجل سيئة ورسول كيسا فهيتر تتلاس إلى الله إلى أجل سيئة ورسول كيسا فمن كان كاتب تدريس للدنيا الدنيا يسيبها وصاشق يسا أو مراتبة وينكحها وجرسوه فهيتر تتلاس إلى ما أتر إليه يسلح بسيئة بسنكي إلهي باع وينابان كبلابي دوناي بسم الله وضدها dugsigayga sharafta leh ay ixtiriyo ku magac dheer Sheekh Umar Ugaarka dugsi loo hiloobo loo wadahan wayo loo riyaaqay baa tahay barayaal aqoon badan Ilaahay ku simayo ee basiyay baa tahay macallimiin aan daalayn daacadnimo ku dheertay duco waalid wada qaba Ilaahay ku simayo ee basiyay baa tahay jamciyaatu biriya hadii aan noo iman dugsi aan noo furin aqoon maan lahaadeen xijaab maan hagoogteen soodan aan ku noolahay dayax soo siraatiyo cadceed soo iftiintiyo sagalka ma ahaadeen jamciyaatu biriya saamigii naftayda ay sokeeyay xigaalay salaankii qaaday hoygii tacliinta hooyadii aqoonta ay tusmadii wanaag iyo talo loo midoobay dugsi haybad badan oo hooyooyin sharaf leh iyo hablo wadeedaabsami halka lagu tilmaamay lagu soo hiranayay loo wadahan weeyahay biri maanta weeyaan safxadaha kitaabkana sidbaad igu dardaarto adiga salaad iyo igu ababshay soonko dambi aan sameeyay iga siiyay waano saalixinaan aadaad tacbada u tumaysay saamigii naftayday sokeeyay xigaalay salaankii qaaday jamciyaatu biriyay waxaad nooga dhigan tahay seer maweyda curato si weyn loogu baahnaa oo sataladii hargeysaad saameeyay subax qudha waa sareeda noloshiye rabbi uu ku siiyo subxa lagu tanaadee ifka nolol barwaaqa aakhirana tawacan iyo dariiqii rasuulkiyo dawgii xaqa ahaa jannadii ku horumara jamciyaatu biri ha jirto ha joogto jailanagoa ondana ujeedin ayaynoo jidbixisoy diinta nugu jahayse ha joogto madaxdeeda kora iyo maamulkeeda hoosana mawlu
midhahoodii baanu nahay maskaxdoodu keente mawluhu hadaayo madrasada hanbadane diinta laga muuqurta maankoodu keene mawluhu hadaayo madrasatu naajax iyo macallimiintana mawluhu hadaayo quraankiyo tasfiirkiyo tarbiyad iyo xadiiskiyo tibiyanka carabige taariikhda waa canbay nagu toosiyeenay nagu tababareene rabbi hataa kuuleeyo aan dhigtaa aqoonta afkaan dhigtaa af soomal baan dhigtaa hidaha afka hooya iyo aftahankiisaan aqan mahmahdiisaan alkumay ahaanshan doonaya afkaygaan dhowraya aanu nahay anagu arday baanu nahay ardaydii wadigaanu nahay awixii wadankaanu nahay waxaanu astaanu nahay dalkani amligiisa oo waxaanu astaanu nahay horumarka aligeena oo rajaanu abqaalaynaa inin baan beeraynaa iftiin baan daaraynaa ardayga aan garab lahayn ayaan ag istaagaynaa akhbaar baan siinaynaa waxaan la abqaalaynaa dhidibka u adkaynaynaa aragti guushuu hele hooyadu waa lamaahuraanka hooyadu waa hayinka nolosha hanaankiyo waa halbeega heerarka koonka ee la sheego marka hore salaan guud salaan dhowrsan oo wacan tani waa mid saafiya saxan oo la soo xulay golo waxaa la geenaa xaajaan gorfaysane aan guda dalooline gartaan idiin wadno galkaan ka saarnay bulshadii dhegiin idiin fura marka koowaad wax mahad u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala isku keenay goobtan biranay boqran mar labaad suubanaheeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mar saddexaad dhigiina sida sharafta leh ii soo dheehanaya mar afraad maamulka iyo macallimiinta markaskeena jamaacatul birri haddaan intaas laani mahadnaqa iimano aan iskiin barno waa groupka iyagoo la magac baxay hooyada jecel maanta waxaan idin wadnaa mowduuc kaasi oo indhaha ku qasbaya ilinta qalbigana u jeedaya danka iyo mawjadaha xasuusta haddaba dhigiina si fiican noo fura aan iskiin barno waxa garabkayga taagan walaashay Safa Cabdirasaaq Maxamed waxa garabkayga taagan walaashay Muhammad Waliid Maxamed waxa garabkayga taagan walaashay Hooda Xasan waxa garabkayga taagan walaashay Salma Cabdirasaaq waxa garabkayga taagan walaashay Hooda Cabdilaahi waxa barnaamijka furi doonta walaashay Nafran Cabdilaahi Ciise ها walaal تقييمها قايها قدرن iyo xishmaneynta waxay naga mudan hooyadeen macaan fadlan ilaali xanaanay oo xaq dhowr
walaal hooyadu waa iftiinka ubaxa umiyaha dhammaantiisba iftiinkaasina haddii uu damo umiyuhu dhammaan lahaa sida shamaca dhashada u dhammaado ها walaal hooyadu allah ka soo kootanaa sababteeda u timid adduunka sababteedana aad ku geli doonto jannada madrasadayda koobaadi waxay ahayd laabta hooyo ayaa la weydiiyay caalamkan halkii ay ku jeceshahay waxay tiri kan yar ilaa uu weynaanayo kan maqan ilaa uu imanayo ka xanuunsan ilaa uu caafimaadayo intoodaba waan jecel ilaa inta aan ka dhimanayo walaal hooyo waa sababta jiritaanka nolosha waana sababtaada guulaysatay waxaa kuusatay dhiigayga iyo caafimaadkaygii si aad u hesho caafimaad tanaama walaal hooyadu waa kaliya tay ka maarantay raaxada iyo nolosha macaan kana doorbiday xanuunka rafaadka iyo silaca iyo balanbalka isla markaana u hibaysay nolosheeda iyo raaxadeeda inuu ilmaheedu ku noolaado haddaba mudane xijirtayda dhiigay xarabkii labaade iska haybadiisay xaqaliya dhankaagay qudhigaga xidhantee la'aanta xayaatada xabaal baan ka geliyay walaal waxaan jeclaystay inaan ku dareensiyo haddii aad hooyo haysato inaad haysato jannada iibka oo dhan fadlan ilaali xanaane oo xaq dhowr waayo allaha kow kan abuurtay ayaan ku dhaartay iyada ayaa wax waliba kaa mudan walaal hooyadu waa qofka ugu samriga badan uguna dulqaadka badan marka loo eego ilmaheega ka dhashay wiil iyo gabadh midka doonaba ha ahaadee walaal maxay tahay waxyaabaad u raadinayso wax kale hadiiba aad haysato hooyada macaan aroor walbana aad arkayso iyadoo hortaada taagan walaal hooyo waa takaliye ee aan laga maarmin walaal hooyo waa takaliye ee ku dhashay dunidan ku keentay maxaad u cilaanaysaa garabkeygana u cilaynaysaa hooyo waa takaliye aynu ku faano allaha inoo dhooro hooyooyinkeen masuulkii jannada noqon oo waa kii midka qurux badan lahaa humaaginta harag jirtiyo hilaacinta birigtira hilaada inta indhuhu hubaal arag soo dabaan hooyay adiga hankiyo gashayda hogaamiyo hooyay adiga ka dhicin hadday shuboobayso haddii mustaaxa hortayda yahay haddaad dalbato tartana hooyay anigaan jirin hubinta geeraarade halmaan jannadii wacnay ilay kugu toosiyo halmaan hooyay ku odhan ilay dalwaamutay halyaanadii awaanada halraawiya misaakii haddii hooyo ka dageen kadisay suugaantane cimrigii markuu helay hambarya xasuustee hala yaab lama lahee hadda kaasaa mudan hooyaa wax loo dhigi laga helay adduunyada xarumaha caloosheed hooye igu xamaashiyo xanaf iyo kuleyl iyo xanuun fooshuleediyo qaydkiiyo xansheerkaad walee igu xambaartiyo xaqii naaskaa maba gudaba Soomaaliyeed qurux badan ayaa waxay tiraahdaa hooyadu waa boqorad umana baahno intaaj loo saaro si loo cadeeyo boqornimadeeda xigmad kale oo si qurux badan baa waxay tiraahdaa hooyadu waa albaabka aad ka soo gashay dunida waana albaabka aad ka gali rabto jannada xigmad kale oo si qurux badan baa waxay tiraahdaa hooyadu waa farxad deganaan iyo ammaan hooyadu waa farxad deganaan iyo ammaan maxay tahay marka sababta aad u raadinayso adduunyadan xigmad ka qurux badan ayaa waxay tiraahdaa caalamkan hal shay ayaa ka qaalisan xaaska waana hooyadeen macaan kara ka soo qurux badan baa waxay tiraahdaa hooyo waxaad qofkii ugu horeysan dhaayaha saaro koori tiraadowkan dhaayaha ku furin xigmad kale aad uga soo qurux badan baa waxay tiraahdaa jannadu waxay haatay lugaha hooyo hoosteeda haddaba gunti gabagabadii iyo gunaanadkii wuxuu baanu idinkaga tegi lahayn ilaahay kuma dhantaalo jirkaaga ka dhowr cadaabta dhuxulayo naar ma saaro halkay ajashaa dhammaato qabrigu ha ku soo dhoweeyo ilaah nuurkiisa kuu dhig isnaad jannadii fardowsa ilaah kugu dheelmi hooyo daahaa nebigii udgoonow ilaah dhinaciisa jooji dhalinyaradi dalkay
midhaha darayga dadkiyo diintuuba sugaysaya oo dardaar culus baan sida inaad dadka toosisan intiina u hagar baxdan dalkiinana dhistan dalkiinana dhistan darkiina ka qaadatan ee diyaar soo umaatiin جاليقو وعذر واحتله جاليقو وعذر واحتله خساري ودفل دعي وتوسحسو دقال ذكبور هباه دفاعينا قشان أديار سوماتين أديار سوماتين قبيالة دواد الحمى قبيالة دواد الحمى دعوني أواد كل جدار كإبليس كإيه شداد انت دكسده دلان عرش شيء دوفان إيادا كدر دوفان إيادا كدرا dalkeena waxaa dibdhigay dalkeena waxaa dibdhigay daroogada qaadka iyo daluunta qabyaaladiyo darbiga jahligu dhidbe sidii loo dumin lahaa dalku u hormarin lahaa ee diyaar sowmaatiin ee diyaar sowmaatiin دار البر مدرسة دار البر تكسيغا ويان بري أقل كتير صديق تزين ونكسني علمي درجوين علمي درجوين دار البر مدرسة دار البر نباكم مدار صدا دروس وعنبان دكتاه وحانيك سنة ضيحة وحانا شدي دبكي أستاذ يا دداليا أستاذ يا دداليا دار البر مدرسة دار البر لما انت يا بي وتاهي الكي لقدان يا تعلين تترتورنا دعينا متيسة الله دايم وكدا الله دايم وكدا dambaina ugu dambaina ugu dambain dadaala cilmiga dugsada dariiqa hartiinayal danaala magooshin karo dayar garabuu rabaa duciya dalabuu rabaa oo dulqaad badan buu rabaa oo dulqaad badan buu rabaa سامركو ودوبلها دبيلها وايا إيو ظروفها لغو دحمرو وحا لغو دوق دودا مركي دادقم تيرا وحا لغو دوق دودا مركي كادقم تيرا mas-uuliyiintii qiimaha badnaa ee madashani ka soo qayb galay ee ka mid ahaayeen
mas-uuliyiin ka socda wasaaradda diinta ee awqaafta culimaaudiin waxgarad aqoon-yahanno ayaa dhankooda iyaguna kelmado aad u qiimo badan munaasabadani ka soo jeediyey waxaana mahadnaq aan la soo koobi karin u jeediyeen mas-uuliyiinta jamciyadda albiri ee u taagan islamarkaana isku xil saaray in carruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah ay baraan kalaamka ilaahay waxaana mas-uuliyiintani hadalladoodii ka mid ahaa ka wasaarad ahaan waaxda horumarinta tacliimiga iyo dacwadda mas-uuliyiintooda dhammaantood inta nagala soo qayb gashay intaan maqnaynba fariin salaan baan niiga sidaa waxaa kaloon salaan niiga sidnaa waxa weeyaan ka wasaarad ahaan agaasimaha guud iyo wasiirkii diinta awqaafta oon salaan niiga sidno maadaama jamciyaddan ay inta badan ka jamci ahaan aad noola soo xidhiidho inta badanna jamciyatulbirri waxaan ugu mahadnaqayaa hadafkaa keliya ay qabsadeen ah in ummadda koonayaasha ay kor u qaadaan qur-aanka akhrinta inay dadka aan karayn inay wax bartaan ay wax baraan waan xasuustaa allah xafide ee samsam berigay noo timid waxay ahayd 2012 samsamay 2012 baan xasuustaa samsam iyadoo gaari yar la socoto aan kuraasna wadin bay tiri ayaan ku dhaxay ku socota waa Sheekh Umar waxay ugu tiri madrasad baan doonay inaan ka asaasno waxna ma sidna labada maqsadna tiingada ku dhigto baan u soconnaa hadafkii alxamdulillah rabbil caalamiin waa ma ku reeyno meeshii waxa noqotay meel ummadan ka soo baxdo maanta hadii ummadda aan lagu dadaalin waxa noqonaysa qofku fikirka uu la yimaado hadaan uu ka dhab sheegin fikirkaagu wuxuu noqonayaa fikir aad iska sidato marka insha Allah aad iyo aad waxa ugu mahad celinayaa mas-uuliyiinta dhammaantiin jamciyatul birri iyo dadka inteenaas quruxda badan ee uma soo saaraysa maanta waxa ugu badan ee lagu dadaalaya waxa weeyaan waa haween iyo dhalinyar haweenkii haddii diinta looga faa'iideyn waayo iyagana lagu dadaali waayo waana lagu dadaali waayo fikirka maanta fikrada ugu badan ee Hargeysa ka socda waa la garanayaayo waxa weeyaan waxa aad dadkii social media aad u saameeyay deetana wixii xun waa la wada faafiyaa laakiin arrimaha khayriga inay ku dadaalo dhalinyarteena waxaan aad ugu baraarujinay waxa weeyaan inteenan quraanka badatay inta baranaysa iyo inta qalin jabisay quraanka xifdiday inay sii kordhiyaan waayo cilmigu ma dhamaado cilmiga qofku intuu maanta shahaadada ka qaato shahaadada ka qaadanaysa waa dhiirigelin waa sii wad weeyaan faraska usha waxa loogu dhuftaa inuu ka sii badiyo waalidkana waxaan ku dadaalayaa waxa weeyaan in ay ciyaalka la saaxiibaan haddii ciyaalka la saaxiib waayo oo meeshuu marayo heerku taagan yahay iyo wuxuu qabanaya la socon waayo isku xidhkii waa meesha ka baxayo shaydaan baa ka faa'iideysanaya marka waxaan idigu boorinayaa waxa weeyaan haween waalid dhalinyaro inay diinta ku dadaan horumarka lagu sheegaya waa diinta weeyaan xasbu qofku intuu diin barto ama uu ka fikiro ama uu ku dadaalo ayuu midhiisa leeyahay maanta waxaa soo midhaa waa fikir baa sukan keenay hadafkeena waa diinta weeyaan جزاكم الله جزاء وانا السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل قوبتنا انو نمد وقوب عباده قرانك الهي با لوو وينينيا مدارس كان تيرada badan meesha iskugu yimid koonayaasha magaalada oo dhan ka yimid dhamaantood waxaan filayaa in quraanka uu lagu dhigto soo saamaha marka waxa weeye quraankan in la weyneeyo oo sidan aynu u bilownay Cabdikariin sheegayay maantana ay madaarisku kor ugu sii socdaan waa farxad Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu farxo waa quraankii oo loo dabaaldegayo kale waxay la tahay macalinka iskuul dhigaya wana qaanayo dahawshiisu way iska yarta isada ingiriisi aad u dhigayo samuradu buu ku yar qora tabadeetana waa ka faa'iideys laakiin macalinka quraanka dhigaya arday buu ugu yeedhayaa 30 arday ee fasalka fadhiya arday kasta uu la kulmayaa dabadeetana quraankii buu ka dhageysanayaa haddana wuu marinayaa haddana xiisadii kale dareeriskii buu galayaa haddana higaadii baa sugaysa haddana subcii baa ugu dambeeya shan maaduu macallinku dhiga dadka qaarkoodna waxa laga yaabaa inay sitaan ay yeesayaan quraanka aanay waxba u arag iskuuladana wax weyn loo arko sidan baabana ugu wax weyn u arkaya oo soo kulanteen isugu timaadeen wax yar maaha ilaahay agtiisa waa khayr weyn baad samayseen inay ardadu intan laga sii dadaalo oo dadaalka la sii kordhiyo
macallimiinta iyo maamulayaasha halkan aasaasayna waxaan leeyahay dadaalka sii laban laaba shaydaankii iyo cadowgu wuu jiraa oo ma ogola marnaba in quraanka lagu dadaalo dacaayadaha loo sameeyaayo mar walba maaragtay si cabdikariin sheegayay social media waxa ka socda waynu aragnay inan walo quraanka dhigato oo madaariskan ka tirsanay waa inay ku qanacsanaataa quraanka macallinku wuxuu leeyahay lala saaxiibo ardayda waanu la saaxiibnaa waanan ku dhex jirnaa habeen iyo maalin wasaarad ahaanna inay iyaguna sidaa ula socdaan baan aad u rajaynaynaa runtii in mar walba quraanka lala saaxiibo ardayda lala socdo iyagaaba ka markhaatiya waxa weeye waxaan inaga dhaadhacsan eenu leenahay malcaamad halka war ingiriiski baa malcaamad bixiyay marka waxa weeyaan in la yiraahdo madrasad ereygaas xataa kuwii dhiganayaan lagu kari karin madrasad dhax quraanku waa wax weyn weeyaan inaan qanaaco ku yeelano ku qanacsanaana baa la rabaa anigu ka maamul ahaan waan ku qanacsanahay intaan quraanka wadnay madaariskan badanka dumar baa ka shaqeeya dhammaantood sidaan ula socdo aad bay ugu qanacsay waa dad maaragtay dadaal badan waa dad juhdi badan waa dad fikir badan wasaaradahaanna way og tahay sidaa ay shidaalka wasaaraddu ugu caawisayna xataa inay mushaharkiina haddii ay u samayn karayaan ay u sameeyaan baa aad u muhiima oo juhdi fara badan wax weyn lala qabto wasaaraddii oo dhan baa maanta guuraysa sheekh nuur baa inala fadhiya sheekh cabdikariin culummo kaloo fara badan oo wasaaraddiiya runtii inay aad u imaadaan oo maantan oo kale xataa wasiirka la soo kaxeeyo kole maanta malaha hawl buu lahaaye yacni aad bay muhiim u tahay ardayda maanta qalin jabinaysa ama aynu nidhaahna qalin bedelanaysa ee waxbarashada heerka ka gaadhay waxbarashadu ma dhammaato way sii socotaaye waan runtii hambalyaynaynaa ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa inuu cilmiga iyo aqoonta diiniga ay barteen uu ka dhigo oo uu ku anfaco nafahooda waalidkood ehelkooda iyo mujtamaca islaamka intaba sidoo kalena ay noqdaan kuwo sii gudbiya oo ku camal fala oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay barteen walaalaha kale ee muslimiinta ah gaadhsiiya iyo kuwa kale ee gaalada ahba islaamnimada ugu yeedha oo arrinka iyo dadaalka iyo juhdiga la geliyay iyaguna ku intifaaca ummadana ku anfaca allah ka dhigo haddaan u soo noqdo wasaarad ahaan annagu runtii wasaaradda waa ogtihiinoo dadaalkeedu ma yara markaynu idhaahno 12 sannadood ee u dambeeyay wasaaradda awqaaftu waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo runtii lagu hirgelinayo in meeqaamka wasaaradda kor loo qaado in dhaqaalaheeda kor loo qaado in madaarista iyo dacwadda iyo dadaalka diinta kor loo qaado oo heer haatan maraya sida hablihii halkan ka hadlayay ama inantii u dambaysan soo gaadhay ay ka hadlaysay in la mideeyo madaarista manhajkoodii in waqtiyadii fasaxa la mideeyo in qorshayaasha wasaaradda ay ka mid tahay in xataa dirayska ardayda la mideeyo insha allahu waxyaabo fara badan oo runtii wasaaraddu ay ku tallaabsatay oo idinkuna aad hormuud u ahaydeen ayaa runtii inoo hirgalay waxyaabaha kale wasaaradda ka dhimanna waa wax qorshaha ku jira hadba togba taagtii buu rogmadaaye wixii awoodeenna runtii waan ku tallaabsanaynaa waxaanan runtii ballan qaadaynaa culimmaduna diyaar u tahay wasiirka iyo agaasimaha guud iyo shaqaalaha wasaaradda iyo culimaadudiinkuba in qaybta dacwadda xoog kor lagu qaado sanadkan xafiiska dacwaddan anugu mas-uul ka ahay iyo wacyigelinta wasaaradda inaynu iska kaashanno culimo haween iyo dhallinyaradaba sidii bulshadeenna loo wacyigelin lahaa loogu wacyigelin lahaa wanaagga iyo khayrka loogana wacyigelin lahaa xumaanta iyo fawaaxishka iyo waxa dunida kusoo kordhaya waxyaabaha aafada inagu haya ee culayska ugu weyn nagu haya imika aan la dagaalamayno waxa ka mid ah ee aan wacyigelinta ka samaynayno waxyaabaha la yidhaahdo baraha bulshada facebooka twitterka whatsappka instagramka waxyaabaha la midka ah runtii waa seef laba af leh warbaahintu ama miidiyuhu qofku hadduu sida wanaagsan dacwadda u isticmaalana way ugu hirgelaysaa haddii sida qaloocan ugu isticmaalana iyana way hirgelaysaa
sidaa daraaddeed waxaan wacyi gelinaynaa hooyooyinka iyo walaalaha macallimiinta iyo hablaha iyo dhallinyaradaba aan ku wacyi gelinayo guud ahaan bulshadaba in aafada ay leedahay miidiyuhu laga digtoonaado wixii khayra ee wanaagana lagu isticmaalo dacwadda ilaahay subxaana wa tacaala laga faafiyo taasi waa qodob waxaan kaloo baraarujinaynaa habeenkii waxaan dagaal kula jirnaa xalay waxaan gurigayga u hoyday kowdii iyo dheeraad waxaan dagaal kula jirnaa koonayaasha magaalada waxaa ka jirta dhibaato adag dhibaatadaas waxa weeye dhallinyaradii magaalada ayaa habeenada weliba fasaxyada khamiista iyo jimcaha iyo sabtida iyo ha ugu badnaadaane gawaadhi bay kaxaysanayaan dabadeedna seeskii la istaagi jiray laysla istaagi jiray imika ma jiro gawaadhidaas la kaxaysanayaa magaalada koonayaasheeda loo baxaya dhib bay nagu haysaa waa hablaheennii waa caar waa dhallinyaradeenii waa mustaqbalkii dalkan iyo dadkani lahaa aynu ku dadaalno qof wal oo inaga madi guri buu ka yimi ma doonayo inuu hadalka iga soo wada baxo laakiin dhib weyn baa ka taagan dhibaato badan baanu kala kulannaa wacyigelin xooga baa laga wadaa meesha dadka iyo ummaddu ay ka hagaagtaana waa qoyska haddii qoysku hagaago waa inuu horta qofku hagaago qoysku hagaago markaasuu qaranku hagaagaya marka baarakallahu fiikum hooyooyinka waxaan kula dardaarmayaa iyo hablahaba in loo feejignaado hablaheenna waqtiga ay baxayaan iyo halka ay ku maqan yihiin loo dhug yeesho midun baan anigu odhan lahaa ardaydu cilmiga ay maanta barteen hadday higaa tahay iyo hadday qur-aan tahay kuwa ifaadada la siinayo iyo kuwa kale dhameeyey qur-aanka intuba maanta waxay cagta saareen kaabadii koobaad ee cilmiga ummadduna waxay ummad ku noqdaan waa aqoonta sida loo kala aqoon badan yahay ayaa loo kala horumar badan yahay sida ay sheegeen culimmadu nuur u dambeeyey iyo culimmadii ka horraysayba maanta waxaa caalamka ka jira waxaan la sheegaya ee faraha badan leh ee social mediaha leh noocyadiisa kala duwan waxaynu taa kaga badbaadi karnaa diinteenna oo aynu baranno axkaamta sharciga ah oon aqoon u yeelanno ummaddu waxay ku hagaagtaa un waa aqoonta waa kii ninkii shaacirkii lahaa man talaba alcilma wadaakara saluxa dunyaahu wa aakhiratahu qofka cilmiga barta kuna dadaala adduunyadiisu way hagaagaysaa aakhiradiisuna waa hagaagaysaa ee cilmiga joogteeya kuna dadaala waxaanu se ka doonaynaa wasaaradda inay intaa ka sii ballaadhiso ogaalka iyo macallimiinta iyo isku xidhka ay aad kolba horumarka wasaaraddu ay samaynayso wasaaradda diinta iyo awqaaftu kolba tallaabaday samaynayso iyo horumarkay samaynayso waa in dadka macallimiinta iyo maamulku waa inay wax ka ogaadaan iyaguna madaarista un ka howlan waayo waxaa hawsha la hayo oo dhan waa hawshii wasaaradda u la khafiifiyey marka waxaan ka codsanaynaa inay wax badan nagala socodsiiyaan maalmaha qaarkood si gaaran la isu arko aadna waan ugu mahadnaqaynaa howlaha imaka ay noo sheegeen ee horumarka ah waana la ogyahay magaalada koonayaasheeda waxaa taga dadka aafaysan oo dhan daroogadaa lala galaa in alla inta aan khayrka lahayn oo dhan ayaa ama gala ama halkaa taga ama deganba oo xaafadaha ku dhex dhuunta ilaahay waxaanu ka baryaynaa mar walba in ilaahay diintiisa kor yeelo ilaahay baana ballan qaaday inuu ilaahay diintiisa kor yeelayo ولا هذا الدوار اللي هو له هذا قال نوالي لها كدور يوكاها أني هنا كدور يان هذا الكاشجاي بان هذا يدي وهو يكاهريا هبلا يهو حقيقي فهمي وحريقي دينتوده هبلا يهو حقيقي فهمي وما كان راضي هبلا يهو جعلكي دبيقا جهوادا نوري هبلا يهو جنكوني أسكوري سوني جيلا بيتا قلبي قايدين سلاي مركادي تباتين قلبي قايدين سلاي مركادي عدوقتين قلبي قايدين سلاي مركادي ريتوتين تبهونا قولنا يقولون حوالا وثولا شداد بدن الدنيا لا يجيكو شراحيا شرعتهم بينات ويكو رشا
shaqeeyaan sharaftiisa khayrkoo dhan bay ka shuqlinayaan digtoonow naftaadiyo iblays way ku daagayaan دمعيسا شيطان هداني دين دارسيو وواحد طريقا مرتبتها كوحران وواحد لو كرا ربيو تقضى آخران دنتاديو وانا قدبو كالا تيريراي ترتاقلو كلا رباتي قدية هوغي دكتورو نفتاديو إبليس ويكو داقيان gudoomiye ku-xigeenka jamciyadda albirri muune aadam nuur iyo mas-uulka xafiiska waxbarashada ee madaarista jamciyadda albirri sucaad cabdiraxmaan cabdilaahi ayaa dhankooda iyaguna iska daba maray islamarkaana faahfaahin ka bixiyey waxaana hadalladoodii ka mid ahaa annagoo walaalaha xubnaha jamciyadda birri dhammaan magaalada gudaheegay degan yihiin ay aada ugu adkayd in daafaha magaalaha wax laga qabto iyadoo magaalada gudaheega la deganayn haddana camalka intaa leega musmirka ee midhodhalka cidda ka qayb qaadatay ee halkaas soo gaadhsiisay waa walaalaha macallimiinta maamulka jamciyadda birri ilaahay subxaana watacaala idin barakeeyo waa ku faraxsannahay runtii sana dugsiyeedka maanta inoo soo gabagaboobaya ilaahayna waxaan ka rajaynaya waxaad barateen qaar ilaahay ku anfaco oo ilaahay subxaana watacaala diintiisa ku faa'iidaysta ilaaha idinka dhigo aad baa u mahadsantihiin haddii aan ka warbixiyo sana dugsiyeedkii tegey ee 2022 ilaa 2022 waxaa inoo suurtagalay injaasaad fara badan ayaa inoo suurtagalay kow waxaa ka 20 arday ee maanta halkan aynu shahaadooyinka ku siin doono ee shahaadada maaragtay ifaadada ah ee taxfiidul qur'aanka qaadan doona ee xifdiga qur'aanka kuwa soo dhameeyay kuwa wax yar u dhiman yihiinba isugu jira ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah odaydana dadaal lagu bixiyay ardaydii xulka ahayd ee jamciyadu birri u tafaxaydatay muddadii ay jirtay oo ay ka mid yihiin imaka 3 arday ee inoo soo bixi doona xilliga dhow ee inoo dhamaystay 3 sano shareecada ahaa oo ay waqti badan jamciyadu ku bixisay oo laga keenayay magaalada daafaheeda oo magaalada gudaheeda wax loogu dhigayay usbuucii 2 cisho soo xaadiray iyagoo iskuulada 5 cishona wax ka dhiganaya xaafadahooda gudahooda wax ka dhiganaya macallimiintii markaa waxaan u mahad celinayaa sida gaarka ugu hawlanayd ee iyaguna casharada u baraayay waxaynu kaloo iyaduna injaasaadka sanadka tagay ka mid ah oo aan sheegi doonaa qodobka aadka u muhiimka ah oo ah tababarkii sanadka soo socday ee macallimiinta jamciyatul birri oo ay ka qaateen dad aad u fara badan ay maaragtay ka faa'iideysteen waxa weeyaan maadaama ay suurtagal noqon weyday inay isbuuc maaragtay xidhiidha wax ka dhigtaan magaalada gudaheeda yimaadaan ay maaragtay barakacyaashiina ay wiig maaragtay wax ka dhigayaan hal wiigi maalin bay iman jireen 48 xiisadood baa loo qorsheeyay oo si gaara waxa sanadka loogu tareegareeyay manhajka wasaaradda diinta iyo awqaafta u dejisay madaariska taxfiidka qur'aanka kariimka ee dalka Soomaaliland ilaahay mahadi tareerinkaasi waxa ay ka qaateen oo ay waliba fursad u heleen asaatidadii manhajka soo dejisay qaar ka mid ah sida sheekha maasasada aflax ee sheekh Ahmed oo macallin u noqday sheekh Faysal oo shareecada qayb ka mid ah siinayay walaashan Fahima Khadar oo iyaduna qayb ballaaran ka qaadatay iyo sheekh Anisa Aidid waxaan leeyagana yahay miisaanka xasanaadka idinku daro qaybtaasina waxay ahayd qayb la taaban karo waqtiga macallimiintu soo siiyeen si ay u soo dadaaleen waa arrin injaas ah oo laga soo gudbay waxaa kaloo iyaduna ka mid ah injaasaadkii sanadkii hore ayna dhaafay xaggii tawciid iyo muxaadaraadkii ilaahay fadligii waxaad ogtihiin magaalada gudaheeda ayaa jamciyadu ka idaaraysaa hawlaha barakacayaasha arrintaasi in fara badan way nagu adag tahay in maalin kasta amba usbuuc kasta la idinla joogo laakiin bishii hal mar ayaa qorshaysan in la idin soo gaadho
ilaahay fadligii waxa weeyaan 12 maxaadare sanadkii ayna dhaafay 10 kamid ah inoo fulay labaduna sabab awgood bay inooga baaqdeen waxaa kaloo jirtay arrin kaloo injaas laga gaaray oo qaybta maamulka ahayd oo loo sameeyay barnaamijkii in la maaragtay mideeyo imtixaanaadka xilliga la gelayo iyo xilliga fasaxa la gelayo maadaama madaariska jamciyadu biri duruufo badan ku xeeran yihiin waxa dib ku noqotay in ay markaas hal mar wadanka fasaxna la galaan ay maaragtay xillina ay la maaragtay imtixaanaadka la galaan laakiin bacda muhaawalaad mas'uuliyiinta jamciyada ee qaybta maaragtay maktabka tacliimiga ilaahay fadliga waxa inoo suurta galay sanadkan in marna fasaxa lala galay madaariska wadanka marna imtixaankii lala galay waxa kaloo xusid mudan iyaduna in la sameeyay maamul daadajin ay jamciyatul birri ku samaysay hawlaheedii oo maanta la sameeyay sanadkan ima kala insha Allah waxyaabaha hirgeli doona kamid ah laakiin sanadka dabayaaqadiisii la taasiisiyay maamul daadajin xagga maaragtay xaggii maamulka waxbarashada oo guddi laga sameeyay macallimiintii oo mas'uuliyiin ka noqda waxbarashada ee jamciyatul birri waxa ilaahay mahadiya kuwa waynu soo dhaafnay fadliga ilaahay naxariistiisa iyo walaalihiina kaalmeynayba inoogu suurta gashay iyo mas'uuliyiinteena maaragtay ee dhinacayna haya waxyaabaha aadka u la yaabka badan tawciyada iyo maxaadaradaasi sanadihii hore oo dhan markay wagashawash ku dhacday suurta gali weyday lubka iyo markaasi xubinta muhiimka cidda ka qaadatay waa wasaaradda maanta waqtigoodii noo soo horay culimadoodii ina soo siiyay halka inaga soo ag fadhiyaan wasaaraddeena sharafta badan ee diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland waxay inoo suurta galiyeen inay naga bixiyaan shidaalka lagu tagayo xaafadaha marka maxaadarada la soo qabanayo insha Allah ta'ala waxaan yara guda gali doonaa qaybihii marka sanadkan iyo qorshaha cusub koo waxa ka ardayda maanta halkan ay ifaadada ku siinayno inaynu sanadka dambana tii khatmada siin doono ayaa inoo qorshaysan oo wasaaradda diinta iyo awqaafta ay horgeyn doono imtixaanaadka ku soo gali doonaan shahaadadana ay u saxiixi doonaan insha Allah ta'ala waxa kaloo kamid ah macallimiinteena sharafta badan ee waxaan ugu mahad celiyaan maanta garan waayay in ilaahay uu weydiinayo ajarka iyo miisaanka xasanaadka inuu ugu daro amalkooda ikhlaasna uga dhigo tababar loo qorsheeyay oo qiimo badan oo inoo markaa ugu tala galnay duruqu tadriis alquraan alkariim qaabka loo dhigo quraanka kariimka oo tasxiixi wata oo laga caawinayo oo kutubtii ku haboonad ay qaadanayaan sidoo kalena waxay qaadanayaan mid kamid ah tababarada uu bixiyo markaska uu mucaad dacwada iyo tababarada oo qaybtii dibloomka ee macallinimada ah markii hore markaan ku tababari jirnay xarunteena laakiin sidaad ka warqabtaan waxa saameyn nagu yeeshay dabkii ka dhacay sanadkan magaalada Hargeysa suuqa Waaheen oo xafiiskeenuna uu ku yaalay sidaa daraadeed macallimiinteena waxa suurta gashay shirarkoodii dambe oo dhan in lagu qabto markaska uu mucaad lidacwati wa tadriibaat maaragtay xaafadda hafladan ku yaaleen mas'uulka ka ahay halkaasay imaadaan ilaa iyo barakacyaasha koona kastaba ha ka imaadaan halkaasay imaadaan tadriibkii sanadkan halkaas loogu qabanayaa waxaana waliba loo sameeyay in tadriibkaas qaybtiisa sidoo kale aan ugu tala galnay maaragtay dibloomka macallimiinta kale waxay ku dhigan jireen qarashaad waxay ku dhigan doonaan macallimiinta jamciyadu birri free bay ku dhigan doonaan insha Allah ta'ala waxyaabaha kamid ah sanadkan inaynu qorsheynay waxa kamid ah xulkii oo la siyaadiyo amaba ardaydii shariicada u soo baxaysay madaariska jamciyada u soo baxayay maadaama manhajkii inoo saxmay oo in ilaahay fadliga iyo walaalahan wasaaradda tacliimta aynu ka helay manhaj toos ah oo madaarisku si fiican ugu shaqeyn karaan in ardayda xulka soo siyaadaan deetana inaguna aynu xalino dhibaatadii ahayd basaska ardayda lagu soo qaado xilliga markaas ay xulka imanayaan ay duruusta shariicada qaadanayaan lambarkii kontonka lagu xadidi jiray oo laga siyaadin doono ayaa isaguna inoo socon doona insha Allah ta'ala oo qorshayaasha sanadkeena kamida waxa kaloo jirta oo iyadana ku tala galnay idamka raxmaanka inuu ilaahay inoo suurta geliyo maxaadaraadkii tawciid inaynu laba laabno
oo suldadaa la daadejiyey ayaa wax shaqo ka dhigan doontaa inay markaas muxaadaraad 15 laa ay ka galaan madaariska gudihiisa oo ay markaa culayska ka yaraado magaalada dadkii ka soo baxay gudaheeda insha Allah taala waxa kale oo iyadana xusid mudan barnaamijyada aan soo sheegay oo u baahan qiimeyn iyo daadejin oo insha Allah taala mar walba ay jamciyadu heegan inoola tahay waxaan ku soo gabagabeynayaa qodobadii aan imaka lahaa way muuqdeen oo oran karo waa iska iqtiraaxaad anbaba dardaaran ahaana waa qodobka koobaad waxaan ku wajahayaa mas'uuliyiinta ciiday doonaan baa noqdaan habday noqdaan macallimiin noqdaan maartay maamulkii jamciyada fadhiya iyo si gaar ah maamulka maartay wasaaradda inagala fadhiya waxaan qodobkan yara xusuus dul istaagi lahaa wuxuu yahay qodobada mas'uuliyiinta waxaan kula maartay dardaarmi lahaa tacliinteena maanta ilaahay fadligii tacliimaha jira waxaynu ku faano ayaynu ku aragnaa iskuuladeena madaariskana iyo jaamacadaheennaba madaariskana waa qayb ka mid ah oo waliba si adag la isaga xil saaray koonayaasha magaalada ku yaala waxaynu u baahannahay si hawshaasi u sii kacdo oo kor u sii kacdo in waxyaabaha loogu talagalay tacliinta wadanka in headline la soo dhigo aynu qorshayaasheena ku darsano waxa kaliya in ummad ku noqon karno sideen horeba u ogeyn inay maaragtay xoog la saaro qaybta tacliimiga siiba cid kasta oo ay khusayso haday tahay qaybta maaragtay waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada iyo haday tahay qaybta maaragtay dacwadda iyo taxfiidka ka shaqeysay wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa la doonayaa in budgetka ugu badan sanadka soo socda inay waxbarashadu yeelato si ay dad fiican inoogu soo baxaan waxa iyadana arrintaasi ay aad iyo aad uga muuqataa tusaalana inoogu ah waa arrin loo baahayo haddii mushkilaadka la yareeyo oo mu'asasaad fara badan oo tacliimi soo baxaan waxay u baahanayaan cid maaragtay idaara siyaasiya culiya bay u baahan yihiin oo arrimaha maaragtay kala sareeyo la soo kala gurayo in markaas iyadana ay maaragtay saxiixiyaan oo ay bulshada meel ay u galaan marka waxaan leenahay mas'uuliyadda arrinta halkan maanta taagan jamciyatul birriya jamciyadaha la mid ah mutadawiciinta waxay xilka u hayaan amba ay hawshoodii hayaan waxa weeyaan mas'uuliyiinta halkan fadhiya waxaanay uga baahan yihiin inay gooriyayaanba ay ku mucaawaneeyaan ama ay ku taageeraan oo ay ku tabantaabiyaan waxa xusid mudan tusaale yarna idinka siinaya xagga sare marka idaarada siyaasiga ka soo hagaagto inay xagga hoosana wax ka hagaagayaan bilicda magaalada Hargeysa iyo intuu Maayir Cabdikariin qabsaday wixii iska bedelay waynu arkaynaa in fara badan baa walaaluhu soo xusi jireen culimadu ka sheekan jirtay masaajidada nadaafada dalka laga shaqeeyo bilic wadooyinka la inoo furo dhag looma dhigi jirin laakiin markii dawladdu ka soo baxay ay ka soo baxeen rag Maayir raawle annaga wax bedelayna amba qorshahaasaanu ka leenahay waynu arkaynaa in maanta loo tafaxaytay halkaas iyo halka sareysa aynu wasaaradaheena ka sugaynaa insha Allah waxbarashada qaabilsan waxaan leeyahay aan kula dardaarmi lahaa hablaha macallimaadka iyo inamada macallimiinta ee ka howlgala jamciyada birriga guud ahaan macallimiintaba inay hankooda kor u qaadaan bulshada hagaageeduna gacantooda ku jira iyaguna inay hamiyo doonid la yimaadaan dadkana ay waxyaabaha daaficiyada ee ku riixaya in waxbarashadan la faa'iideeyo oo ummad wax loo faa'iideeyo ay isku dayaan camalkoodana ay ikhlaas ka dhigaan waxaan kula dardaarmayaa waalidiinta halkan fadhida mataacibta idinka soo gaadhaysa ubadkiina inay wax bartaan amba aan nafihiina wax bartaan inay u samirtaan gabagabadii munaasabaddan markii la soo gaadhay waxaa la abaalmariyay dufcadii koobaad ee soo dhammaysata xifdiga qur-aanka kariimka kuwaasoo tiradoodu ahay 20 arday isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasoo soo xifdiyay 114 suuradood ee sodonka jisa qur-aanka kariimka waxaana noqonayaan dufcadii koobaad ee ka qalin jabisa 11 madarasadood sidoo kale waxaa munaasabadani lagu maamuusay in ka badan 55 arday oo iyaguna kaalmaha ugu horeeya ka soo galay imtixaanaadkii laga soo qaaday sanad dugsiyeedkii dhammaaday halka ardayda qiimaha badan ee madaaristani ka barata xifdiga qur-aanka kariimka
ay dhankooda maamuseen maamulkoodii weliba macallimiintoodii jaaliga ka soo saaray jamciyadda albirri ayaa ah jamciyad samafala oo ka shaqaysa arrimaha dacwadda iyo weliba arrimaha khayrka. wiib saryaan warbaahinta nolosha islaamka hargeysa. waxaan ku dawaqay isticmaalka baraha bulshada. waxaan habeenay maalin raadinayaa goob aan ka isticmaalo isla markaana aan kala socdo muxaadaraadka diiniga iyo barnaamijyada xasuusinaya aakhiradayda. talow halkeen ka helaa? ma ku haysataa cabashadan oo kale? haddaba waxaan ku hayaa channelka warbaahinta nolosha islaamka oo ah TV dacwadeed oo ka shaqeeya arrimaha dacwadda, kaas oo aad kala soconayso barta YouTube-ka waxaad ku qortaa warbaahinta nolosha islaamka. waxa ku soo baxaya channelka warbaahinta nolosha islaamka. ku sii dhufo waxaad sii gashaa qaybta ay ku qoran tahay playlist oo aad ka helayso in ka badan 30 qol oo ay ku kaydsan yihiin muxaadaraad iyo barnaamijyo diiniya. khayrka ka faa'iideyso sina gaarsi walaalkaaga islaamka. ballanteena waa warbaahinta nolosha islaamka. ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ee cilmiga shareecada islaamka? ugu kaalay markaska xifdul qur'aan online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka, higaada iyo culumta shareecada islaamka. wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda. ballanteena waa markas xifdul qur'aan online.